saaxiibayaal maalin dhow waxaan idinla wadaagay muuqaal aan kaga hadlayay 3 shay oo aad u mudan inaan maal gashano waxa ugu horeysay inaan si mug leh u maalgelino koriimaha nafteena haddaba taladii igu saameynta badnayd ee aan ka helay koriimaha qofnimadeenu waxay ahayd wax kasta oo ku soo gala 10% kamida 10% kamida naftaada dib ugu celi si aad ugu koriso oo kor ugu qaado xirfadahaaga iyo waxa taqaanid iyo ogaalkaaga iyo wacigaaga inagu ma nihin ceel soo burqanaya oo aan gureyn ibn aadam baynu nahay karaankeenu meel buu taagan yahay ogaalkeenu meel buu taagan yahay aqoonteenu waxaan qaban karnaa iyo wax soo saarkeenu meel buu taagan yahay laakiin waxa jira potential weyn oo haddii aynu ka shaqaysiino wax weyn ka bedeli kara waxaan qaban karnaa iyo aqoonteenu iyo fahamkeena 10% kamida wax kasta ku soo gala haddii aad u quudho naftaada oo dib ugu celiso si aad u kobciso kor ugu qaado ogaalkaaga xirfadahaaga wax soo saarkaaga aqoontaada wax weyn oo aanad malaysan karin bay ka bedeli doontaa naftaada aban si fududayo $100 hadduu ku soo galo $10 oo $100 kamida si joogta ah naftaada ugu celi marka naftaada ku celinteeduna ama buu ku gado aqoon iyo faham cusub ku siinaya ama ku gado si aad xirfadaha taqaanid u soo fayso ama xirfado cusub u barato ama ku gado koorsooyin aad leedahay wax weyn bay ku kordhinayaan ogaalkaaga aqoontaada ama ku gado safar aad leedahay wax uu ku soo kordhinayaa intaad ogtahay intaad taqaanid ama wax kale oo maalgelin macna leh oo wax weyn ka bedelaysa waxa taqaanid iyo wax soo saarkaaga ku gado dadka qaar 10% oo ay joogteeyeen inay naftooda dib ugu celiyaan ayaa u abuurtay library gurigiisa ugu dhaxyaal dadka qaar 10% baa u abuurtay inuu helo agab iyo qalab wax soo saarkiisa saameyn weyn ku yeesho 10% hadaad ku bilowdo oo wax kastood hesho intaad ka guyso ad naftaada dib ugu celiso isku quudho isbedel qayra xad u wanaagsan oo nad filayn ay kugu keeni doontaa saaxiibayaal talada ila soo tijaabiya waxaad ku bilaabay 10% kaasi uu kobci haddii $100 soo galaan $10 baad ka goyn haddii $100 soo galaan $100 baad ka goyn haddii $10,000 soo galaan $1,000 baad ka goyn kor buu u soconaya wax kasta oo soo gala 10kaas aad ka yara jaraysaa waxaanad u tixgelinaysaa 10ka lama taabtaan ay tahay inuu ku noqdo naftaada haddaanad koreyn waxba inaga go'aya noloshu waa tartan saaxiibayaal waxaan ku tartamaynaa inaan nafteena daahirino nafteena wanaajino nafteena korino nafteena u suurta gelino inay si joogto ah u kobcayso oo ay ka fiican tahay shalay qofka ahayd maanta qofkay tahayna ay bari ka fiican tahay waxaanu ku tartamaynaa inaynu nafteena ka qaadno meeshaan maanta joogno oo geyno meel ka fiican falyatanaafasil mutanaafisuun wala tartamaya wanaaga lagu tartamaya dadaalka lagu tartamaya wax kasta oo wanaagsan oo insaanka faa'iido u leh iyo aakhiraba ayaa lagu tartamaya haddii aynaan koreyn waxba iska keendimay waa inaynu si joogto ah u korayna qaaciidadan inaad si joogto ah u korto ay wax weyn ku dari doontaa magacaygu waa Faysal Transfer Galaxy waxaan ku xirnaa muddo 3 sano oo macaamiil lahaa Transfer Galaxy waxay ii fududeysay inaan caawiyo walaalkay si uu u gaaro himilooyinkiisa waxbarasho